ودافورك وجهة أفراد اسمها حرونت الدجمة ياقشي وأيكتب قادنا نسو شركة سم أوبشن أكاديمي حرونت الدجمة أيها الله دساء حب عسري يضعنا اسمها يدو ومريو ميل جبجباه دافورك وجهة أفراد أيها وحق جوجها مسؤولين تمام الكدجمة يضعنا وجورين وهلك وكهالي مارياه شركة بيمو أهنا إنجنير كدسة يدجمة إنجنير محمد حاج عثمان مشروع اسمه الدجمة ياقشيد oo ah qaybtii wixii ugu dambeysay oo dhamaystirka mashruucan ahaa kaas oo aan ku dhigayno interloga dhulkii degmada Yaaqshiid waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka rajeynaa inuu si nabad noogu dhamaystiro barnaamijkaas oo iska qayb qaadanayaan maamulka sare ee shirkadda Bimo iyo shirkadda Sam Option oo ah shirkad Soomaaliyeed oo yani qayb ka ah shirkadaha maalgelinaya ama maalgashanaya degmada Yaaqshiid Cabdinuur Maxamed oo ah gudoomiyaha Sam Option Academy ayaa dhankiisa ka hadlay doorka ay ka leeyihiin dhismaha degmada iyo waliba sida ay ugu qayb qaadan doonaan qaybtan ugu soo aaday ee ah dhismaha interloga ama dhagax dhiga interloga maadaama dhismo hore u socday degmada wax badan laga qabtay annagana doorka nooga soo aadan aan helno waxay ahayd inaan dhagax dhigno interlogi maanta aan dhagax dhignay kaas oo mashruucii ugu dambeeyay degmada ay ku qurxinaysay xarunteedii degmada oo si wanaagsan loo dhisay waan ugu mahadcelinaynaa dhammaan bulshadii Soomaaliyeed ee degmada ay qaybta ka noqday inay sidaan u qurxiyaan degmada annagana mas'uuliyadda noo idmadeen ay noo xil saarateen oo ay noogu doorteen shirkadihii kalena waxaan rajaynaynaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala noo fududeeyo isla markaana aan ka soo bixi doono gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Yaaqshiid Maxamed Deeq Xasan Gaafow ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in muuqaalka qurxoon ay waqti geliyeen dadka degan degmada Yaaqshiid quruxda arkaysaana waxa maal gashaday oo xoogooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda isku darsaday dadka degan degmada Yaaqshiid waa dad isku tashaday waa dad macno iyo qiimo leh ugu horeyn ma hadda waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala oo na soo gaarsiiyay heerka maanta aan joogno inaan noqono 17 degmada ugu quruxda badan gabagabadii waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Muuse Geese Jimcaale waxaana ugu horeyn uu mahadcelin u jeediyay shacabkii ganacsatada degan degmada Yaaqshiid siday juhdigii dadaalka ay u galiyeen dhismaha xaruntani waxaana uu sheegay in shacabka degmada looga fadhiyo sidii ay muuqaal qurxoon ay ugu soo saari lahaayeen guud ahaan degmada Yaaqshiid marka marar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay shacabka degmada Yaaqshiid ha guuleystaan Allah sharfo in iyagana waxaan ku bogaadinayaa mashruucan iyo mashaariic ka badan way qaban karaan shacabka haday iskaashadaan in ay ku tala galaan deegaanka Yaaqshiid in ay iyagu dhisaan dhaqaalahooda ku dhisaan maskaxdooda ku dhisaan aqoontooda ku dhisaan cidna aysan ka sugin inay wax u dhisto maxaa yeelay dhaqaal ahaanna waxa lagu tuhmayaa inay yihiin dad dhaqaal haysta aqoon ahaanna dad dhisan baa lagu tuhmayaa in xoog marka la yiraahdana shacabka inta degmooyinka ugu weyn gobolka Banaadir waa degmada Yaaqshiid degmada ugu weyn waay marka cid ay wax ka sugtaahi ma jirto inay isku tashataa oo wax dhisataa wax qabsataa Cabdi Fataax Muumin 5TV magaalada Muqdisho